Xiriir kastoo jecel waxa uu ka bilowdaa meel. Marka laga tago waqtiga iyo sidoo kale sanadku bilaabanayo, hadba marxaladda ayuu ku bilowdaa. Marna xagga waxbarashada, marna xagga ganacsiga, ama laga yaabo in qof isku xaafad aad tihiin, xiriir jecel inuu idin dhex maro, ama qof aad iska barateen baraha bulshada, ama qof aad kala fog tihiin oo xiriirkiina uu bilowdo. Lamaanayaasha lagu kala magacaabo Sumayo iyo sidoo kale Saacid waa laba qof oo xiriir jecel oo qoto dheer uu ka dhexeeyo. Sooyaalkoodii nolosha iyo xiriirkoodii jecelka siduu kusoo bilowda ayay markii ugu horreysay ka hadleen. Laakiinse waa muhiim lamaane kastoo xiriir jecel uu ka dhexeeyo in mararka qaar cashar aad ka qaadato bilowga xiriirkooda iyo sidoo kale sida isku barteen, adigoo tusaale dhow iyo sidoo kale ka qaadanaya halkaasi cashar laga yaabo in dib noloshaada u anfici karo, kaasoo la xiriira hadba xiriirka jecelka sida uu ku bilowdo iyo qaabku isku bedelo xiriirkaasi. Lamaanayaashan waxay isbarteen sanado ka hor, khaasatan sanadkii 2014. Saacid waxa uu ahaa qof ku xamaasha harqaanka, laakiinse gabadhan si fudud ay isku barteen, iyadoo ugu tagaysay xilligaasi goobta harqaankiisa si dhar ay doonaysay xilligaasi ugu sameeyo. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka dhashay bilowga xiriir jecel. Inkastoo xiriirka jecel isla markaas uusan bilaabo karin, laakiinse mar waliba oo gabadhan dhar ay u geysato wiilka, waxa uu ku dhihi jiray, waad mahadsantahay, iska dhaaf, lacag ha i siinin. Taas waxay keeni jirtay in mar waliba gabadha su'aalo iska weydiiso, muxuu ka wadaa wiilkan iyo ujeedada uu leeyahay waa maxay? Gabadhan oo tilmaamaysa in waddanka ay ku nooshahay ama waqti badan ay ku qaadatay Sweden uu yahay, laakiinse gabadhan waxay tilmaamaysaa in muddo kadib xiriir jecel uu sidaas ku bilowday. Qof waliba ruuxa kale ayuu daryeeli jiray, isla markaana il gaar uu ku eegi jiray. Farxadda iyo xiriirka jecelka labadooda ka dhaxaysana waxay noqotay mid sareysa. Iminka baraha bulshada ayay kusoo bandhigaan xiriirkoodii jecelka iyo sida daacadda ay isugu yihiin labadooda. Inkastoo lamaanayaal badan oo xiriir jecel oo wanaagsan uu ka dhexeeyay jiraan, haddana sirta xiriirkooda qariya oo baraha bulshadan kusoo bandhigin. Balse waxaa jira sidoo kale lamaanayaal Saacid iyo Sumayo ay ka mid yihiin oo baraha bulshada xiriirkooda kusoo bandhiga. Saacid iyo Sumayo waxay tilmaamayaan in xiriirkoodii jecelka uu soo bilowday waqti hore, sanadahaasna uu ahaa mid ay daryeeli jireen, isla markaana waqti badan ay gelin jireen. Inkastoo barashadooda sanadii 2014 ay bilaabatay waa sida ay sheegeen, laakiinse xiriirkoodii jecelka muddo kadib ayuu bilowday oo isla sanadkaasi muusan dhalan. Sumayo waxay sheegtay waqtigaasi in aad ay u yarayd iyada, laakiinse mar waliba oo ay soo garaadsanaysay ay dareemaysay rabitaanka badan ee xagga wiilka kaga imaanayay isaga xaggiisa. Balse xiriirkoodii jecelka ee u bilowda hadda waxa uu isku bedelay inay yihiin laba qof oo isku qanacsan, isla markaana farxad ay ka dhaxayso. Qof walibana waxa uu ilaaliyaa isla markaana uu dhowraa ruuxa kale, taasoo labadooda ka dhigtay in xiriirkoodii jecelka uu sareeyo, isla markaana wanaag badan mid xambaarsan uu u noqdo. Waxaa laga yaabaa inaad haysato qof xiriir jecel oo idinka dhexeeyo, hadba sida aad doontaan aad isku barataane, qofkaasna uu yahay ruux adiga kuu dhow. Suuragal waxaa jiri kara qof aad isbarateen, xiriir jecelna uu idin dhex maray, haddana si fudud kaaga fogaaday. Suuragal inaad haysato qof aan kaa fogaan, naftaadana wehel waa mar waliba. Laakiinse lamaanayaashan tusaale waxay u yihiin kuwo badan oo xiriir jecel uu ka dhexeeya, isla markaana aan kala fogaan, xiriirkoodana xarigiisa aad u adkeeyay. Waxaa laga yaabaa sidoo kale in xiriir kastoo jecel ee lamaanayaasha dhex mara in hadba sida uu ku bilowdo marka laga tago, in xiriirkaasi farxadii wanaag uusan ku dhammaan oo ugu dambeyntii ay kala tagaan. Balse lamaanayaashan hamigooda ugu weyn waa inay wada jiraan, wada joogaan, wehelna isku ahaadaan sanado badan. Kuwii isku waara ee aan kala fogaan, kala dheeraan, xiriirkoodana uu sii waaro, Allah ka dhigo. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.